markaas iska ilowdo tobankii ishee ugu dambeeyey waxaa la xidhay mas-uuliyiin ka badan 20 oo ka soo jeeda xisbiga waddani oo gobolka togdheer gobolka saaxil iyo gobolka maroodijeex ka tirsanaa weli qaar baa xabsiga ku jira xisbigu wuu dulqaatay dalka isagoo eegaya duruufihiisa laakiin waxaanu u sheegaynaa in xisbigu aanu dulqaad dambe samayn doonin oo uu ka falcelin doono dhacdooyinkaasi hadday soo noqnoqdaan waxaa iyana soo noqday oo ah somalilan ku cusub in xarumo xisbigu kiraystay la yidhaahdo ka baxa axsaabta laga kirayn maayee oo haddana kulmiye laga kireeyey waxaa ka war haysaan xarumo xisbigu kiraystay oo mafaatiixdii haysto oo nootaayadii haysto oo heshiisyadii haysto oo weli ciidan haysto oo uu ku gadaaman yahay waxaa jira xarumo kale oo la baayacayo oo la leeyahay ka saara waddani dhaqankaasi waa dhaqanka cusub somalilan waxaan shacbiga u sheegaynaa inay arrintaasi foolxumo tahay kana digtoonaadaan kuwa mas-uuliyiintaana ee arrimaha ku kacayana waannu uga digaynaa inay ku kacaan ama sii wadaan arrintaas waxaa kaloo iyana jirta oo foolxumo aad u weyna axsaabta qaranku dhammaantood waxay naga madan yihiin xurmo astaanta koowaad ee xisbigu waa calankiisa waxaa dhacday oo aan kow ahayn oo aan 2 ahayn oo aan 3 ahayn oo aan 4 ahayn in calamada waddani mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsani ay dejiyaan ama xisbiga kulmiye toba maxaa ku salliday calanka dee calankooda ha ka taagtaan waddooyinka maxaa ka waddani u furfurayaanay u soo rogayaan waxay leeyihiin baa la yidhi marka waddani soo marayo waddada waa in laga dejiyaa dhammaan calanka waddani marka kulmiya soo marayo taasi waa arrin aan loo dul qaadan karin waa arrin sharci darro ah waxaannu haynaa oo caddaan ku haynaa mas-uuliyiin ka tirsan kulmiye iyo xukuumadda oo dejinaysa calanka waddani waannu soo bandhigi doonnaa haddii ilaahay ka dhigo waxaa iyana soo noqnoqday oo sharci darro ah in shaqaalaha dawladda oo ka mamnuuca inay siyaasadda galaan ay maalin walba tiifiyada ka muuqdaan oo ay hebel iyo hebel u garanaysaan bal waxaa isweyddiisaan safarkii ugu dambeeyey kulmiye imise shaqaalaha dawladdaa la socday imise gaadhiyoo GT-yaa la socday sidaynu u tartamaynaa haddii mas-uuliyiinta waddani la xidho oo xarumaha waddani la weeraro sidaynu doorasho xora oo xalaala oo calanka waddani la dejiyo sidaynu u tartamaynaa waxaynu u baahannahay inaynu helo garoon aynu u simannahay oo aynu ku tartanno falalka aan sheegay iyo kuwo kaloo aanan hadda sheegini waxay keeni karaan isku dhac waxay keeni karaan xasillooni darro waxaannu xukuumadda ugu baaqaynaa in doorkeeda hoggaamineed ay ka qaadato lana helo in la helo garoon loo siman yahay oo lagu tartamo waxaannu u sheegaynaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddaba inaanaan falalkaasi hadda wixii ka dambeeya aannu ka falcelin doonno oo si sharciga waafaqsan kaga falcelin doonno hadday kallifayso in mudaharaad silmiya laga dhigo dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan oo arrimaa laga soo tegay waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa inay arrintaa si dhow ula socoto oo ay ka war hayso arrimahaas ka soo hor jeeda sharciga iyo dimuqraadiyaddaba maanta waxaynu haysannaa fursad aynu ku tijaabin karno awoodda dastuurku ina siiyey oo ah inaynu wax dooranno marka ugu horraysa
waxaan ugu baaqayaa shacbiga reer Somaliland in qof kasta oo muwaadin ah oo isdiiwaangeliyey uu qaato kaarkiisa codaynta waxaan leeyahay waa madfaca ugu weyn ee shacbigu haystaa waa codkiisa codkiina maanta waxaa ku hubsataan meesha isbeddelka ku filaysaan meesha cadaaladda ku filaysaan meesha ammaanada ku filaysaan intaas waxa uu ku soo ururaysaa xisbiga waddani walaalayaal ugu dambayntii waxaan idinku baaqayaa inaad ilaashataan midnimadeen shacbiga inaynu ilaashanno amnigeenna oo amnigii maanta looga baqi maayo mucaaradka in la xumeeyo waxaa looga baqayaa kulmiye iyo xukuumaddeenna inay amnigii xumayso amnigana aynu ilaashanno walaalayaal maadaama siyaasiyiinta halkan taagani inoo fureen in shacbigu ku doorto ikhtiyaarkiisa wax inaynu qabyaaladda ka guurno oo axsaabta u guurno waxaan soo jeedinayaa inay axsaabta ku kala doorataan barnaamijkooda siyaasiga ah waxaa noo himilaa inaannu cadaalad samayno waxaa noo himilaa inaannu dadka midayno waxaa noo himilaa inaannu hantidooda u ilaalinno waxaannu noo himilaa inaannu hantidoodii u soo celinno sharci darrada lagu qaatay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu